munaasabad siyaar sare loo soo agaasimay isla markaana lagu soo dhaweynayay taageerayaal mugle oo ku soo biiray xusbiga macaaridka wadani ayaa lagu qabtay hotel guuleeda ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaasi soo dhaweynta ka soo qayb galay saraakiisha sarsare xusbigaasi iyo haweenka waxgaradka iyo waliba dhalinyartaasi beesha ka soo jeeda koonfurta iyo bariga magaalada Hargeysa ugu horreeyna waxa munaasabadani halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay taageerayaasha miisaan kale ee ku soo biiray xusbiga macaaridka wadani waxaana hadaladoodii ka mid ah sida tan sidoo kale waxa munaasabadani ka hadlay saraakiil ka tirsan xusbiga macaaridka wadani iyo salaadiin madashaasi iyaguna lagu soo dhaweeyay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan dhanka kale waxa guntiga gabagabadii munaasabadani soo afmeeray musharaxa tigada madaxweyne ku-xigeenka iyo musharaxa tigada madaxweyne ee mudane Cabdiraxmaan Cirro waxaana hadaladoodii ka mid ah sida tan in cadaalad iyo sinaan dalku gaaro
intii haweenka hadashay waxay tilmaameen dhibaatada ka taagan magaalada qaybaha ay degan yihiin laakiin waddankooda bay ka taagan tahay waddani baana u taagan inuu dhibaatooyinka wax ka qabto. marka hore waxaan jecelahay inaynu u ducayno suldaan maxamed cabdilqaadir oo la ii sheegay inuu Itoobiya ku xanuunsan yahay. suldaanka ilaahay caafimaad ha siiyo iyo dhammaan qabaqaabiyaashii munaasabadan weyn ee qaaliga ah ee hablaha koonfurta Hargeysa ay halkan ugu qabannay. hablahana waxaan leeyahay gacmo furan iyo qalbi furanba ku soo dhowaada. geystay mas'uuliyiinta sarsare ee ka tirsan xisbiga waddani. arrintaasi ma arrin la qaadan karo, ma aha arrin la aqbali karo. waa kicin dadweyne, waa abaabul dagaal sokeeye. Cumar Shaafi, TV-ga caalamiga Rayo, magaalada Hargeysa.